oo barnaamij gaar ah ku eegi doono kulanka xiisaha leh ee u dhaxeeya kooxda Liverpool iyo kooxda Man City. kooxda Man City ayaa marti u ah kooxda Reds ee ka dhisan magaalada Liverpool garoonka Anfield oo kulan aad u xiiso badan daawadayaasha kubadda cagta oo idin ay sugayaan. kulankan waxaa falaqeyn doona oo taxliilin doona Nigay Muuse Ducaale oo khabiir sports oo in muddo ah horyaalka dalka Ingiriiska la socday. haddii aan taariikh ahaan eegno kulankii ay wada yeesheen Man City iyo Liverpool haddii xagga guulaha la eego City waxay badisay 6 jeer xagga 3 jeer ay baraajiyeen 104 jeerna ay Liverpool xasuuqday kooxda City. Nigay kooxda Man City imka waxay leedahay wakaant labaad bay ku jirtaa marka la eego horyaalka dalka Ingiriiska. ma u bacdhigi kartaa kooxda Liverpool iyadoo marti u ah garoonka Liverpool. Sadio Mane sidoo imka Liverpool u yimi oo Southampton uga yimi ciyaaraya amba qaab ciyaareedkiisu oo qaab ciyaareed joogto ah maaha mid isla dhimaya. waynu sanadkii hore wax ku guuleystay goolanta liiga Ingiriiska. haddii aan eego taageerayaasha Liverpool garoonkooda sanadkan seasonkii hore marka intaa la isku qiimeeyo waynu ognahay seasonkan Man City kooxda ugu hooseysa ay ku soo guul dareysatay away inay ka soo badisay Norwich City. Norwich City waa kooxaha ugu hooseeya horyaalka Ingiriiska sax. marka haddii aynu xagga ka eegnaba maadaama ay Norwich City away kaga soo badisay Liverpool waxa oran karnaa waxaan ku sheegayaa in Man City haddii laga badiyo la dheeraan doono 9 dhibcood bishina ay tahay maxay bishii November 12 la geliyo oo ciyaaro badan City ku soo waajahayeen sida inay Chelsea maxay la ciyaarto inay United la ciyaarto inay Arsenal la ciyaarto kooxo badan ba City u haray kooxo weynaadan oo dhan. marka waxaan oran karnaa haddii ay Liverpool axadda bisha 10keeda ay ka badiso City Liverpool waxay ku dhawaan kartaa inay liiga qaado.